بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa in la wadaago dadweynaha reer Galkacyo dadweynaha reer Puntland iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo kale oo adduunyada iga daawanaya fariinta soo socota caafimaadku waxa weeye shay muhiim u ah nolosheena oo la rabo inaan dhamaantii aan gacanta isu qabsano marka waxaan rabaa dhowr tusaale inaan tuso saynu ogaano caafimaadku sidoo inuu ka dayacan yahay aan u baahanahay si dhaqso leh inaan wax uga qabanno balarka dadweynuhu hadaa eegtid meheradaha ka shaqeeya raashinka wadooyinka ku beega ilinkooda badanaa waa madoobaadeen oo wasakhdii biyihii ayay ku daadinayaan alaabta ay ku dhaqeen bal dadweynuhu arka hadaynu galno maqaayadaha muhiimka ka ah waxaad arkaysaa makiinadaha shaaha inaan ku kariyo ama kafeega lagu sameeyo meeshay saaran yihiin hadaa ag istaagtid xaqiiqan waad isla yaabaysaa meeshaas ur ka soo baxaya iyo nadaafad darida ka jirta bal iyadana ila arka suuqyada markaynu tagno hilibkii aynu cunaynay oo ilmaheena iyo guryaheena aan geeynay banaanku yaal iyadoo ay ku dhacaysa ciidii siigadii iyo boorkii diqsigiina uu saaran yahay intaasi waa waxyaalaha inaan ka dayacan tusaale kamid ah dhinaca kale ka eeg beledkeena waxaynu meelaynka istaagna ka weynay waxa weeye waa qashin aan si sax ah loo maareyn tusaale ahaan bal fiirsha bacaha ku dhagan guryaheena ilinkiisa geedaha meel kasta oo xooluhu daaqi lahaayeen ama dariiqaynu mari lahayn arinta marka aan u baahanahay waxa weeye horta aan ku baraarugno inaynu ku dhex jirro arin ah caafimaad darro bulsho oo khatar ah qof kasta oo muwaadin ah oo guri kasta ku jira oo hooyooyinka aan ka bilaabayno iyo aabayaasha ila guryaheena aan ka bilaabayno waxaanu maanta ka bacda gacanta isu qabsanaynaa waxa ilaahay hadda aan soo jeediyay iyo tusaalayaashan idin sheegay oo gaari kara kumanyaal xabo laakiin saddexdaas waxaan rabaa tusaale inay idin noqdaan oo waxayna ka khaldan oo aanu misna saxi karno inaynu gacanta isu qabsano tusaale kale biyaha caagadaha aynu ka cabno adaynu qof kasta caagada cabay meel gaar ah u dhigo caagadaasi dib aynu isticmaali karaa isla biyihii baalaynu ku soo shubi karaa caagada dib aynu isticmaali karaa oo laameen oo noqon kartaa eraygaas luqooyinka ajani waxa lagu yahay recycling ama shayga in mar labaad dib loo soo xoolaysto oo la isticmaalo adoo aan deegaanka iyo caafimaadka wax yeelayn marka aynu furanno gole ka shaqeeya baraarujinta caafimaadka horumarintiisa bulshada arintaas waxaan jeclahay inay ka noqoto lead dawladda hoose Galkacyo ayuu kaashanaysa bahda wasaaradda caafimaadka ee gobolka iyo degmada saas ayaan gacanta isu qabsanaynaa waa maanta waa horudhac waxaan idin sheegaynaa kala isbadyo kale oo tacliimeed oo ku aadan caafimaadka bulshada waqtiga dhow soo socda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh